السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو وعنا وناكسان صاحبة قيمها هي قدرنت نجا مدن ملك سوى جوكتاني ولي بس كسود نولا سعوتان هل كان هو سلطان كتيفي وحدوق براتن سلطان كتيفي وررس حنو حقيقة ده كوسلا يسني حقها كجرة الصومالية qodobada aan warka ku eegi doonaan waxa kamid noqonaya dawladda Mareykanka oo amar adag dul dhigtay hogaamiyaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani kadib markii Saciid Dani uu weeraray Boosaaso waxaan eegi doonaa dawladda Mareykanka oo dawladda federaalka Soomaaliya kala hadashay ciidanka BSF Mareykanka oo Dani ku eedeynaya inuu dhibaato xoogan u geysanayo ciidan waqti iyo sidoo kale qarash bal geliyay BSF haddaba hogaamiye Dani wuxuu ka yiri tallaabada Mareykanka uu qaaday ku saabsan ciidanka BSF iyo sidoo kale amarka la duldhigay hogaamiyaha Puntland warkayaan ku soo gudbin doonaa wararkeena kalena waxa kamid noqonaya magaalada Boosaaso gobolka Bari oo wali ay ka taagan tahay xiisad culus iyo sidoo kale Dani oo ciidan uu markaasi hogaaminayo ku sii jeeda Boosaaso shacabkii barakacay oo banaanka Boosaaso banaabax ka dhigaya kaasoo looga soo horjeedo hogaamiye Dani warkayaan ku soo gudbin doonaa qodobada kale ee aan eegi doonaan waxa kamid noqonaya kulamo xoogan oo ka socda gudaha magaalada Muqdisho siyaasiyiinta mucaaradka oo isugu yeeray xubno cusub oo ku maqnaa dalka dibadiisa oo kamid ah mucaaradka shirki ugu xoogana oo lagu diidan yahay doorashooyinka Soomaaliya oo ka socda hoteelka Jasiire gudaha magaalada Muqdisho warkayaan ku soo gudbin doonaa iyo sidoo kale waxaan dul istaagi doonaa dawladda federaalka Soomaaliya oo lacag badan ku bixinaysa in uu xildhibaan noqdo mid kamid ah sirdoonka Soomaaliya ugu awoodda badan gaar ahaan Cabdullaahi Kulane oo kamid ahaa saraakiisha ugu sareeya ciidanka sirdoonka Soomaaliya saaxiibada qiimaha iyo qadarinta naga mudan halkani waa Suldaanka TV subscribe saara Suldaanka si share gareeyo muuqaaladan saaxiibada gaarsiin si ay kula daawadaan like tahnagay loobin commentiga noogu soo qoro qaybta hoose adigoo ka aragti dhiibanaya wararka warbixinada iyo xogaha aynu markaasi soo gelinay YouTube-keena waadna ku mahadsantiin sida noola socotaan u diyaar garooba qodobadii aan dul maray oo intaas ka faahfaahsan aan ku bilowno warkeena waxaynu ku bilaabaynaa warkeena dhinaca Puntland ee dawladda Mareykanka ayaa amar adag waxay dul dhigtay hogaamiyaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani kadib markii Dani uu weerar ku qaaday ciidanka BSF ee Mareykanku markaasi juhdi qarash iyo sidoo kale waqtiba geliyay taasoo dawladda Mareykanka saraakiil ka socday kala hadleen dawladda federaalka Soomaaliya sidii loo joojin lahaa xiisada ka taagan Boosaaso hogaamiye Danina looga hor istaagi lahaa damciisa ku aadan burburinta ciidanka BSF oo Mareykanku qarash badan geliyay sida saraakiishu bay sheegeen saraakiil sarsare ka socda dawladda Mareykanka ayaa kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya waxayna kala hadleen xiisada Boosaaso iyo beegsiga lagu bilaabay ciidanka iyagoo ay tababareen qarashkana ay geliyeen sidoo kalena ay markaasi muddo dheer hor istaagnaa dagaalamayaal ka tirsan Daacish oo ku sugan gobolka Bari gaar ahaan dhinaca Buuraleyda ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa xogo waxay sheegayaan in la hordhigo laba qodob oo kala ah in hogaamiye Dani uusan markaasi burburi karin guud ahaan ciidankaasi sida darteedna dawladda Mareykanka ay tallaabo qaadi doonto haddii aan xal degdeg laga gaarin xiisada Puntland lama oga go'aanka roob loo qaatay balse wararka ayaa sheegaya in hogaamiye Dani uu walaac xoogan kala kulmayo kadib markii la gilgilay awoodiisa dawladda Mareykanku ay hajabaad weyn u soo dirtay hogaamiye Dani isku dayaya in uu markaasi boobo kuraasta lagu dooranayo gobolka Bari iskana hor leexiyo saraakiisha markaasi caqabada ku hogaamiye Dani dib doorashadiisa hogaamiye Dani boobkiisa kuwaasoo la sheegay inay si weyn ay uga soo horjeedaan in hogaamiye Dani uu boobo kuraasta gobolka Bari lagu dooranayo wararku sida ay sheegayaan dawladda Mareykanka ayaa waxay walwal ku furtay hogaamiye Dani waxaana laga cabsi qabaa in go'aankan uu saameeyo hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani isla wararkaas ayaan ku guda jirnaa xiisada wali way taagan tahay wararkii ugu dambeeyay xiisada Dani iyo BSF ayaana la soo warinaya in isimada Puntland iyo waxgaradku ay soo fargeliyeen iminkana dadkii shacabka ahaa ee duleedka loo saaray dib loogu soo celinayo gudaha magaalada Boosaaso xiisada maalmihii u dambeeyay markaasi ka dhax aloosneed agaasimaha hay'adda BSF iyo sidoo kale hogaamiyaha maamulkaasi Saciid Dani ayaa markaasi la sheegay in hoos u dhac uu ku imada saacadihii u dambeeyay kadib dadaal ay bixiyeen isimada Puntland sida Suldaanka TV ay u sheegeen saraakiil sarsare ka tirsan hay'adda BSF agaasime Maxamuud Cusmaan Diyaano oo ah mas'uulka markaasi xilka qaadista ee ay sababtay xiisada dagaal ee Puntland ayaa la soo warinayaa in uu markaasi wada hadal la bilaabay odayaasha dhaqanka waxgaradkii isimada Puntland agaasime Maxamuud Diyaano ayaa markaasi tallaabadaas qorsheynaya kadib wada hadallo ilaa iyo hadda aan si dhaba markaasi loo ogeyn guusha laga gaaray oo dhaxmaray saraakiisha ciidamada Mareykanka saraakiil ka tirsan ciidamada Mareykanka isimada Puntland iyo sidoo kale Maxamuud Diyaano ilaa iyo hadda ma jiro wada hadal rasmi ah oo dhaxmaray maamulka Puntland ee uu hogaamiye Saciid Dani iyo agaasimaha Maxamuud Diyaano waxaana xiisada hoos u dhigay saraakiisha Mareykanka oo wada hadal la yeeshay Maxamuud Diyaano sidaynu xogta ku helnay iyo isimada Puntland
saraakiisha ayaa ka soo xiganay in agaasime maxamuud diyaano uu arrintaasi markaasi doonayo in xal la gaaro sidaa darteedna uu sii hogaamiyo ciidamada BSF waxa socda dadaalo lagu dhexdhexaadinayo dawladda iyo sidoo kale BSF kuwaas oo ay wadaan isimada maamulka waxaana lagu wadaa in saacadaha soo socda ay wada kulmaan odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale agaasimaha hay'adaas la yiraahdo BSF ciidanka markaasi Puntland isimada ayaa markaasi kulan la qaatay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland kuwaas oo ay markaasi qayb ka ahaayeen wasiirka amniga Puntland oo kal hore hanjabaad culus hawada u mariyay ciidamada BSF iyo sidoo kale wasiirro kale ka tirsan xukuumadda dani xiisadii maalmihii u dambeeyay ee ka dhax aloosneed hogaamiye dani iyo agaasime diyaano ayaana waxay markaasi si weyn u saameysay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari inkastoo ay hadda xaaladdu markaasi ay degan tahay mar walbana laga cabsi qabo in xiisadu isbedesho oo dagaal uu ka dhaco Boosaaso isla wararkaas ayaan ku guda jirnaa wili magaalada Boosaaso wili waxa ka taagan markaasi xiisad culus iyadoo dani iyo ciidan uu hogaaminaya ku sii jeedaan sidayna xogta ku helayno gobolka Bari shacabkii barakacay ayaana duleedka magaalada Boosaaso banaanbaxyo ka dhigaya kuwaas oo ay ku dalbanayaan in hogaamiye dani uusan soo gaarin gobolka Bari si aysan xiisadu u sii laba qarxin hogaamiye dani ayaa doonaya qoroc caaradiis in uu markaasi ku xaliyo awoodda in uu ku xaliyo xiisada ka taagan Boosaaso waxaana la soo warinayaa in isaga iyo ciidamo uu la socdo iyo mas'uuliyiin kala duwan ka tirsan Puntland ay ku sii jeedaan saacadaha nagu aadan ayaa lagu wadaa inay gaaraan magaalada Boosaaso wallow laga cabsi qabo in markii dani uu markaasi halkaasi gaaro xiisadu ay cirka sii gali karto ciidamaduna ay xabad ku jawaabi karaan waa BSF xogaha la helay ayaa sheegaya in ay socdaan dadaalo ay wadaan waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka kadib go'aankii Mareykanka ee ahaa in ciidankaasi aan la burburin oo la baabi'in Mareykankuna uusan raali ka noqon doonin in hogaamiye dani loo adeegsado burburinta ciidankaasi wararku sida ay sheegayaan mar walba marka ka dambaysa shacabku dhagta ayay kor u hayaan waxayna ka walaacsan yihiin go'aanka hogaamiye dani muqdisho ayaan aadaynaa kulamo xoogan ayaa ka socda gudaha magaalada muqdisho oo siyaasiyiinta mucaaradku ay leeyihiin siyaasiyiinta ayaan isugu yeeray siyaasiyiin mucaaradka ka mid ahaa balse aan ka soo muuqan shirarka ay ku yeelan jireen gudaha magaalada muqdisho ku maqnaa dalka dibadiisa Umar Cabdirashiid ayaa ka mid ah siyaasiyiinta loo yeeray oo mucaaradku markaasi ay u yeereen waxayna doonayaan in beelaha Soomaaliyeed oo dhan loo dhameystiro mucaaradka si loo yiraahdo mucaaradku way u dhan yihiin beelaha Soomaaliyeed siyaasiyiinta muqdisho shirarka ku qaadan jiray sida ugu badan waxay u badnaayeen beelaha Hawiye ee degan Hirshabeelle Galmudug iyo gobolka Banaadir waxaana ka maqnaa kulamadaas oo anba ka soo muuqan siyaasiyiinta beelaha Daarood wararka ayaa sheegaya in midowga murashaxiinta mucaaradka ay qorsheynayaan in loo dhameystiro beelaha Soomaaliyeed beelaha dir waxa uga jiray Ridwaan Xirsi oo isugu markaas ka soo muuqan jira kulamada mucaaradka waxaana la soo warinayaa in Umar Cabdirashiid Saacid iyo sidoo kale Cabdiweli Gaasba ay fariimo kala duwan u direen mucaaradku Umar Cabdirashiid ayaana ka soo jawaabay sidaynu xogta ku helnay oo Muqdisho soo gaaray mucaaradka ayaa doonaya in ay gilgilaan dawladda Soomaaliya iyo doorashooyinkaba si markaasi dib loogu laabto kuraasta qaar ee lagu doortay dawlad goboleedyada xogaha qaar ayaa sheegaya in mucaaradku ay ka walaacsan yihiin qaabka doorashada ay ku socoto sidaa darteedna waxay doonayaan in dib loo dhigo doorashada haddii aan markaasi la xalin dhibaatooyinka iminka taagan ugu dambeyntii Cabdullaahi Kulane ayaa markaasi ka mid noqonaya baarlamaanka Soomaaliya wuxuuna isku soo taagay kursi la sheegay in markaasi nin kamid ah mucaaradku ku fadhiya 40 sano la soo dhaafay kursiga uu markaasi doonayo Kulane waxa hadda ku fadhiyay Nadiifo Faarax Jaamac iyadoo Kulane uu xasaanad ku raadinayo Cabdullaahi Kulane oo ahaa agaasimaha shaqaalaha hay'adda NISA ayaa markaasi bila ka hor waxa xilka ka qaaday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kadibna waxa dib u magacaabay Fahad Yaasiin kursigan deegaan doorashadiisu ay tahay magaalada Dhuusamareeb ee Galmudug ayaa madaxweyne Farmaajo waxa uu markaasi beesha oo kula heshiisay in xogta ku helnay in kursigaasi loo wareejiyo Cabdullaahi Kulane ayaa kamid ah saraakiishii lagu soo eedeeyay inay ka dambeeyeen in la waayo Ekraan Tahliil Faarax taasoo la sheegay in qoyska Ekraan Tahliil Faarax oo kamid ah xubnaha ay farta ku fiiqeen Cabdullaahi Kulane balse haydii loo xil saaray ay markaasi dimbi ku soo waayeen warar soo baxay ayaa sheegaya suldaanka Tiifo oo helay in madaxweyne Qoorqoor uu ballan ku qaaday in la soo saari doono Kulane oo kursigan xildhibaanada markaasi uu ku raadinayo loo xiri doono sidaynu xogta ku helayno xildhibaanada ugu badan ee golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad waxa ka soo muuqan doona saraakiil awood badan ku lahaa nabad sugidda Soomaaliya iyo nabad iyo nolol taasoo ka dhigan mid godkooda ay biyo ugu soo galeen xubnihii ugu afka dheeraa mucaaradka isku day jiray inay ka qayliyaan fadhiyada baarlamaanka
saaxiibada qiimaha iyo qadarinta inaga mudan halkani waa suldaanka TV warkiina halkan ayaan ku soo koobayaa nabadgelyo